musuqa iyo maamul xumada baahday ee dalka ragaadisay kuma koobna madaxda oo qura, balse bulshada ayaa kaga badan, sal iyo baarna iyada ayaa unugta. waxa aad adigu falkinaysid, dhibaatadoodana aad iska dhagoolaynaysid, cidna kuma eedayn kartid, garna ma aha inaad cid kale dhakada ka saarto. haddii aad shaqo rabtid ama tartan qandaraas gelaysid ama wax uun dan ah aad meel ka fushanaysid, waxa hubaal ah inaad adigu dhiibaysid dhadhamo wax kuu fudaydisa ama aad adeegsanaysid jifiyeed. imise ayaa boos tartan dadka u dhex ahaa gacantugaalin lagugu siiyey, kolkii tii oo kale lagugu qadiyana maxaad u qaylinaysaa, musuqana aad qaranjab uga dhigaysaa. bilow iyo dhammaad adiga ayaa dhibta iska leh. inta aad ku dhiiran tahay cunidda wax aadan liqidiisa gar u lahayn, musuqu wuu jirayaa. waxa ugu muhiimsan ee aadanaha ka badbaadiya in wadamac badane noqdo, dhulwaayoobiddana tallaal uga ahi waa damiirkiisa. waa hubaal in rumaynta alle ay tahay tan ugu mudan ee qofka ku hagta tubta toosan, xumidana ka ilaalisa waa haddii uu amarada alle fuliye. balse waxaan shaki ku jirin iyadana in isla weynida qofku ay kala teedo ruuxdiisa iyo iimaankiisa, damiirkana uu yahay aymadiisa. damiirka ayaa ah kan mar walba hega ruuxa, wanaagga laftiisana lagu sii kala doorto. jihaadka ugu muhiimsan uguna waajibsan ee ay tahay inuu ruuxu galo waa difaacashada damiirkiisa.